السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل ونحسن مالك استودوني دي أتكجوكتان وحد يقدر ونحسن سي لايفا فيسبوك بيج عبد الله بلوان وبيج عن هاد إيا قرابة برنامج هذا توسك عن أمد الصومالية وقد هديهيو بل وحي السوق أو سوكري الرماد دقدقة أيا جرا وحان دي كعد سنة يا مقال كانت شير قريسان وحان دي كعد سنة يا وقت كوبية هي وركنا وعلسي هي كومع الأريكرو وحان دي كربا إنا تسي شير قريسان inaad sii sheergaraysaan dhammaantiin muuqaalkana like la saaro soo dhawaada 24 saac ayaa ka soo wareegtay khudbadii madaxweyne xasan sheekh maxamuud iyo ra'iisul wasaare xamse cabdi barre khudbadooda waxay ku saabsanayd xadgudubka Itoobiya dawladdu waxa ay noo sheegtay shalay inay tilaab cad qaadi doonto lana xakameyn doono dacwado badan laga gudbi doono lana ixtiraami doono dawladda Itoobiya weligay tan kala ma arag hase yeeshee war naxdin leh ayaan idin wadaa warkaan naxdin uu leeyahay warkaan waxa uu ku yimid xabacsanaanta wasaaradda arrimaha dibadda ama dawladdu culayska arrimaha dibadda ka haysta Itoobiya tilaabay qaaday maadaama dawladdu ay gacan bidixaysay arrintii shalay ay dadku ka qayla dhaaminayeen Soomaaliya warka naxdinta leh intaanan idin la wadaagin waxaan idin rabaa qeyra Jabaanka iska dhaaf shalay waa qaylinayeen hadda waad iska aamusteen dadkan cadawga ah ee maanta dhulkiina raba ama dhulkeena raba badeena raba waxay fahmeen 5 maalmood iyo 3 maalmood inaan qaylino maalinta afraadna aan iska aamusayn waxaan rabaa inaan idin la wadaago war naxdintiisa leh فضلا موقالك شيرغريا كومع الاريكر waxaan rabaa inaad sii sheergareysaan siday wax u jiraan dul istaagi doonaa marka si aad warkayga u fahanto dalkan hoggaan u leeyahay annagu dad baan u dooranay hoggaanka dalka dadkaasan kala xisaabtamaynaa wixii qaldamay dadkaasaana eedda koowaad iska leh mas'uuliyadda dalka markii lagu dhiibo iska seexato ceebta timaada adigay hooyo iyo aabba ku leedahay shalay waa naloo qudbeeyay dalkeena taaka kamida ma ogolaanayn waa iska seexana marka isma weydiin dawladda inaan cadaadis ku saarno war maxaa idin qabsoobay war maxaad qabateen war maxaa idin hirgalay isma weydiin waanu iska seexanay waxaan rabaa marka koowaad khudbadii madaxweyne xasan sheekh maxamuud 24 saac ka soo wareegtay safaaradda Itoobiya waa furan tahay safiirka Itoobiya waa shaqaynaya diyaaradda Itoobiya Airways lama celin waa la diiday shalay in boorarka Abiy Ahmed sawirkiisu dhaga dhaadheer oo wajigiisa nooc kale laga dhigay in la soo bandhigo dawladdu waa diiday waxay tiri wali xushmada naga dhaxaysa naga iyo Itoobiya madaxweynuhu xalam muxuu qabtay sida aad ku daawateen barnaamijkan kii ka horeeyay shirkii golaha wada tashiga qaranka ayuu qabtay madaxweyne xasan sheekh maxamuud shirkii la rabay inuu ka dhigo shir Soomaaliyeed wuxuu yiri Saciidan kama soo qayb gali karo Cabduqaadir Firdhiye kama soo qayb gali karo baashi qabyaaladu ka sidii meeshii la rabay in ummadda Soomaaliyeed oo idil uu yiraahdo maanta maalin siyaasadeed ma aha maanta maalin iska qabsi siyaasadeed ma aha inuu yiraahdo meeshii laga rabay dani kama soo qayb gali karo shirka golaha wada tashiga qaranka wixii dhacay horad waaragteen maxaa cusub hadda marka maxaa cusub madaxweyne xasan sheekh maxamuud waxaan islahaa saaka gobolada dalka dhan u booqan doona si uu dhoolatus iyo fariin ugu diray Itoobiya waxaan islahaa saaka madaxweynuhu wuxuu ka degi doonaa dhul kasta Soomaaliyeed inuu ka duulo magaalada Muqdisho Laascaanood ka dego Garowe ka dego Kismaayo ka dego Baydhabo ka dego ummadda Soomaaliyeed oo dhan uu tago yiraahdo maanta madaxweynihii Soomaaliya ma ahi waxaan ahay muwaadin u taagan wax ka qabashada arrinta badda Soomaaliya dhiirigelinta shacabkan ka sugayay waa iska seexayay wax alla iyo wixii dhacayna maanta bal hortayga qabta maxaa cusub marka fadlan muuqaalka sheergareeya gaarsiiya asxaabta dawladda Itoobiya toddobaadka soo socda dhagaha kala fura 3 maalin kadib 3 ilaa 4 maalmood waa toddobaadka soo socda khamiista jimcaha maanta waa arbaco khamiista jimcaha iyo sabtiga ugu dambeyn hadda waxay ku dhawaaqi doontaa aqoonsiga Somaliland 4 maalin kadib ugu dambeyn maalinta hadda
waxay dhihi doontaa waxaan u aqoonsanay Somaliland inay tahay dal Soomaaliya ka madax bannaan ugu dambayn maalinta Axadda warkaasi fiican u dhegeyso aqoonsigan marka yaa gadaal ka riixaya ma Ethiopia kaliya maya dalal kala rabo inay qorshahan maraan ma Ethiopia kaliya maya wasaaradda arrimaha dibadda waa ku fashilanay arrimaha dibadda ceeba ka taagan fashilkan aan kala dhigdhigi doono si fiican dhagaha u kala furo wadamo waxaa jira gadaal ka taagan oo ay ka mid tahay dowladda Ingiriiska waxaa la fiirinayaa dhaqdhaqaaqa dowladda Xasan Sheekh Maxamuud hadday dhaqdhaqaaqu noqdo qowda maqashii waxna ha u qaban wadamadu dabada isa soo hayaan waana badan yihiin laakiin hadda weli xeer baa celinaya waxay fiirinayaan habka ay dowladda madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud u dhaqanto waxaa bilaabi doona sheekada dowladda Ethiopia ugu dambayn 5 cisho war hadalkaas meel ku qorta 5 maalmood qorshahoodu waa maalinta Khamiista berri Jimco Sabti iyo Axad ugu dambayn habeenkii Isniinta soo galayso waxay ku dhawaaqayaan Somaliland waxay ka madax bannaan tahay Soomaaliya waxaa ku xigsan doona Ingiriiska waxaa ku xigsan doona Imaaraat laakiin hadda ilaa iyo hadda jaansa jira marka dowladda Xasan Sheekh Maxamuud la eegaya bal inay dhaqdhaqaaq samayso iyo inaysan samayn aqoonsiga meel eedhig durbo xilligan aan kula hadlayo saacadda geeska Afrika waa 12 iyo rubi barnaamijka waqtigu live ka yahay waxaa laga yaabaa live ka kadib inaad daawato laakiin hadda waa 12 iyo rubi ama 6 saac iyo 15 daqiiqo waxaa ku qulqulaya Hargeysa qubaro isugu jira waa qubaro Ethiopiana oo isugu jira generaalo iyo dad aad u yaqaana dhisidda ciidanka badda xilligan aan kula hadlayo saraakiishaasi iyo qubradaasi Hargeysa gaareen hadda waa saraakiil ciidan ama generaalo iyo waliba qubaro ku takhasusay xagga badda iyo ciidamada badda siday u degi lahaayeen yaa gadaal ka riixaya oo maal gelinaya waa noo soo socotaa wasaaradda arrimaha dibadda Soomaaliya ma ogtahay maba noo dhisnaba annagu wasaaradda arrimaha dibadeed ma balihinba wasiirkeena arrimaha dibadda Puntland u sharaxay yahay yaa dowladdeennii Soomaaliyeed wasiir arrimaha dibadeed ka ah ma jiro maba jiraba ma hayno cid ka war haysa oo ama xukuumadda Xamza shalay waa naloo bootay haddaan nahay xukuumadda taa ka dhulkeena kamida maba ogaba in duhurnimada maanta xilligan inay Hargeysa saraakiil ka degeen wallaahi xukuumaddeena ma oga wax ay ka og yihiin maaha shalay waa naloo bootay taa ka dhulkeena kamida ma ogolaanayno taa ka dhulkeena kamida aniga Xamza la yiraahdaa taa ka dhulkeena kamida ma ogolaanayno aawe warka waa idin wada saraakiisha iyo generaaladan takhasuskoodu yahay arrimaha ciidanka ee gaaray ee maanta duhurnimadu waa horudhac wafdiga ugu xooggan waxay imaan doonaan gelinka dambe saacadda geeska Afrika markay tahay 4 galabnimo waxaa ka soo degi doona Hargeysa maanta oo Arbacada taariikhdu waa 3 January 2024 inta badan saraakiishu 4 galabnimo waxay ka dambeeyay imaanayaan waa kaasko qorshahooda muxuu yahay waxay horudhac u yihiin maraakiibtii Ethiopia oo soo gaari doonta xeebihii la siiyey maraakiibtii aba soo socotaba mar cid u joojisay shalay waxay noo sheegayeen madaxda qaranka qof u joojinaysa malaha marka almuhiim durbo ciidan ee qubradaasi waxay tageen Hargeysa waxay horudhac u yihiin qayb kale oo maraakiib isugu jirta kuwaasoo ka soo gudbi doona xadka una gudbi doona xadka Soomaaliya iyo Ethiopia kadibna waxay u dhaqaaqi doonaan meeshii loo calaamadeeyay wayna degayaan intaas waa inoo ciidan Soomaa maxay tahay marka dowladdeena waxa ku dhacay maxay tahay dhagaha kala furaya aniga wax ma qariyo madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud shalay markuu ka qudbeynayay xarunta baarlamaanka federaalka Soomaaliya nooma sheegin wixii Djibouti ka dhacay shalayna waan idin sheegay Djibouti wixii ka dhacay qof noo sheegay ma jiro xukuumaddana nooma sheegin madaxweynuhuna nooma sheegin wixii Djibouti ka dhacay ayaa horta socda wallaahi meel ku qora arrimaha siyaasadeed qofkii fahmi karana wuu fahmi karaa waxaynan dowladdu raalli ka ahayn ama dowlad aan federaalka warqad ka haysan
والله قرش اسمه قليليس والله إني سقرش اسقلني إثيوبيا waxay ku kalsoon tahay warqadda federaalka ay ka haysato waa laga dhuumanaya been aan loo sheegaya Ethiopia qarash isma geli lahayn haddaysan federaalka warqad ka haysan war laba jeer kugu celinaya war haddaan qaldanahay ii soo qor war haddaan been sheegaya ii soo qor war haddaan run sheegaya ii soo qor dowlad qarash isgelinaysa ma jirto maamul goboleed wuxuu u soo saxiixo sababtoo ah qof kasta waa og yahay dowladda meesha ka dhisan inay tahay dowladda aqoonsan yahay haddaysan ogolaasho ka haysan federaalka wallaahi in aynan taaka ka mida baddayna aysan dowlad sheega karin tusaale kenya markay badda ugu haysatay waxay haysatay saxiix hadduu doono sax ahaado ama qalad ha ahaado dowladdii shariif sheekh axmed ay saxiix ka haysatay maamul goboleed may saxiix ka haysatay maamul goboleedka jubbaland may saxiix ka haysatay maya dowladdii federaalka soomaaliya saxiix ka haysatay dowlad aan federaalka saxiix ka haysan ma sheegan karto dhul ama bad soomaaliya ka mida etoobiyana waa dad fahamsan wax kasta ugu yaraan timir lafaa ku jirta waxaana ka fahmi kartaa sababta loo qarinayo shirka jabuuti ka dhacay oo madaxweynuhu uu ugu sheegi waayey baarlamanka waa la isqariyey soomaan hadda madaxweynihii soomaaliya xalay wuxuu la hadlay masar madaxweynihii soomaaliya xalay madaxweynaha masar uu la hadlay madaxweynihii masar wuxuu yiri waan idin garab istaagaynaa warqadii qaramada midoobe loo qorayay aaw warqadda midoobe afrika loo qorayay aaw ma la qoray maxaa loo qori waayey aaway dacwadeennii wafdi caalamiya ma dirnay xarunta midoobe afrika wafdigeena ma aaday safiirka ma cayrinay maxaan u cayri weyn safiirka waa noo joogaa diyaaradda ethiopian airways way noo soconaysaa lama ogola markii lagu mudaharaadayo Ethiopia in ra'iisul wasaaraha Ethiopia sawir khaldan laga sameeyo banaanbax ma aragteen maxaa loo banaan bixi waayey ilaan dowladdu shalay waxay noo sheegtay Soomaaliya sheekada saasay noo maraysa Soomaaliya shalay waa wareey hal la istaago dalka ha loo halgamo shalay meeshaasay noo maraysa Soomaa maxaa loo mudaharaadi waayey muqdisho maxaa looga mudaharaadi waayey إيشك إن أنت صدق وحن كوش شيء واحد كلامه إن لا يدين سميه قد بدل يدين كوسه حين يعني يدين حقيقية قد بدل يدين كوسه حين أي لا يدين سميه على كل حال وعرب الله وكلوا نيوسا إن ندلون والله بورم عرس وحصلنا وحي كتمت عنقو وحي نكعب يسمى هي دولة الحق الفدرال كصومالي المقدر رجال وحرير كأرمه الدبدة عنكم بهاينو waa ku fashilanahay dowladdeenu arrimaha dibadda ay ka dhimatay waadna arki doontaa meesha loo socdo dhageysta marka saraakiisha marka laga soo tago ciddii hadda nala qabsatay saraakiil Ethiopiana Hargeysa tageen gelinka dambe ee maanta qaybtii ugu badanaa imaan doonta maraakiibtu waa soo dhaqaaqeen isbuuca soo socdana Ethiopia waxay u bareeri doontaa waxaa la siiyey 4 maalmood arag shalay ku dar 5 maalmood aan la siiyey hadday dowladdu 5 maalmood tilaab ku qaadi weyso Ethiopia waxay u bareeri doontaa aqoonsiga Soomaaliland 5 maalmood shalay ka reeb 4 maalmood aan oo dhiman waxaan haysanaa khamiis jimco sabti ahad afartaasi maalmood hadduu xasan sheekh maxamuud dowladdiisu ay tilaab ku qaadi weyso waxaa aqoonsan doonta Soomaaliland Ethiopia waxay ku timid sababta habacsanaanta iyo waliba waxa noo qarsoon ee madaxtooyada loo jooga waayahay maxuma marka موسى بيحي أيا صون قدونا انتو سن موسى إيمان مراكبتو وحي إيمان دونان قوبيه لو على مدية مراكبتو إثيوبيا انتو سن موسى هرقيسة كسون نقو مراكبتو بوسكي ودو يجوغان مركو هرقيسة كسون نقو مركب كستا بوسكي سو جوغان سراكيسو وحادي كدبو إيمان دونان مركب موسى بيحي مر الله يمركو يمادو mar alle markuu yimaado wuxuu qorsheynayaa inuu safar ku aado wadanka labaad ee Ethiopia gadaal ka riixaya ee naloo qariyay Ingiriis meel iska dhig wadan labaad ayaa naloo qariyay oo arinta badda lu kulay Muuse Bixiya aadi doona markuu soo laabto markuu Hargeysa yimaado wuxuu aadi doonaa wadankaasi labaad markuu tagana waxay wadankaasi labaad ay aqoonsan doonaan marka la Soomaaliland xasanow arrintan arrin la aqbali kara
والله لما أقبلك والله قير الجبان كان لما أقبلك رنتم كل شيء أقول أشلا أنا وحنا ما ندعي دونانه يلكذا قليش كنت تجي دونا دولة جدال كري حيس سومال لنا وإمارات إمارات جدال كتاجر سومال لنا إمارات أي جدال كتاجر إمارات كنت تجي دونا قليش وآدي دونا مصبيح دولة ده مركز جدال كتاجر التوابرك أيضا كإثيوبيا وضع ودولة إنجليزكا وإماراتك وحين لبضع صاحبة دوليهين دولة الصومالية ولما إماراتكو آذوا وقولوا يا مدحوين حسن الشيخ محمود وابا الدولة الدكرية أي كنك أو أي دم جديد تاني يحل جي فرماجو أي كنك رايين ويح كل أقونسي شرعي من نغنية معي أقونسي شرعية سومال لارا إثيوبيا أقونسي شرعية معها لكن ما حان كده حركي كرنا وحينو كجد حركي كرنا وكو تمر لفا كوجت مدحوين حسن الشيخ محمود ورقديسا أيات تعالى ورقد مدحوينها الجبوت وكو صحيحي أيام ميل والبا ugu horeysa ma isdhaqaaji karo shacabku beenu sheega mooyaane war wallahi inuu satlaab qaadi karo shacabka Soomaaliyeed beenu sheegaya Djibouti looga soo saxay Djibouti marka waxa looga soo saxay arrimaha inay hub la imaan karaan xiriirka doonaan inay la samaysan karaan qofka hor istaagi karta malaha maxaa yeelay waxay wataan warqadda madaxweyne xasan sheekh maxamed inta laga soo saxay Djibouti maxaan ku cadayn karaa marka dadka qaar oo hadda ila qabsaday waxaan wargelinayaa dawladda Itoobiya waxay ku jihantahay inay si cad u sheegto arrimihii maalmaha laga hadlayay oo ku salaysnaa inay aqoonsan doonto maamulka jabhadda SNM ee go'doonka ku ah Hargeysa iyo Burco maamulkii jabhadda SNM ayay ku dhawaaqi doonaan 5 maalmood ilaa 4 maalmood kadib isbuuc afoodan ugu soo haya saraakiil ka tirsan ciidanka militariga Itoobiyana waxay tageen Hargeysa doornimada maanta xilligan aan live-ka ku jiro afartii barka saraakiisha ugu dambaysa imaad doonta maraakiibtii loogu talagalay ama loo siiyay xeebtii oo Muuse Biixi saxiixay xasanna uu noo gamba yahayna waxay gaari doonaan goobihii loo calaamadeeyay ilaa iyo haddana ma jirto wax go'aan ay dib uga laabatay dowladda Itoobiya inta waxa sii dheer safarka uu qaliijka ku tagi doono Muuse Biixi taasoo micnaheedu yahay imaaraadkuna inuu qayb ka yahay wadamada gadaalka riixaya in baddaasi Soomaaliya Itoobiya lagu wareejiyo dowladda Ingiriiskana mowqifkeeda marka hore cadeysana waayahay waxa soo dhan marka waxa looga hortagi karaa dowladdeenu hadday daacad ka tahay ilaahay baa runta igu jecel runta markaan sheegayo ummadda Soomaaliyeed runta u cadeynaya ilaahay baa runta igu jecel waxa soo dhan waxa cadeyn u ah looga hortagi karaa daacadnimada dowladdeena shalay qodbad boo isku qaraysa oo beena aan nala jeediyay Soomaaliyeed torso عبد التهليل وسمع الغطوري صومالي بقى شب لما هي واحدة نقاق مظاهرات كرير مقدشة اي ديارين يوسف مدالة ديدي واللي بوحويري استامها يوسف مدالة الشرعي عيارتي كسعتي استادي مقدشو وحا لا يري صور كأبي أحمد أو لقد جني لقد باهل لقد دمير لو كيسيو لقد دير لو سميو حالير ميا لما صوبني كصور كرئيس الوزراء وكان رئيس الوزراء أبي أحمد صور كيس لما جه كرو لما قومي كرو وجه قلد الله ما سمعي كرو أنا قلنا محمد لو يري صومالي بارك أنا قد ضل تاكا كميدا ما أقولي المعذر ريالو صومالية يدبع عدن إسكدائية سياسي قربوا إنو إذن قيانو وحفظوا دينا يوعدينك شريات قيلين يسن حلوة عامستن شب قف بدك حلا يسمع أركست قير الجبان كجوجي قير الجبان كدول كينا الغرق عيا لباب ما الموضة قيلين يسن ما ننت لباب وقع مصيصا والله إذن برتي مارك وحالا ليه الصومالي ده هدو سياسي الصومالي إذن قياني وحوليه هاي سدح ما الموضة قيلين يعني لا يافر مع الموضة ما ننت الشنادي عامصة يعني لعكت الواقع آوي مظاهراتك آوي دادكي الشري قيليني آوي دادكي هبين هورا قيليني شبه ترانين إتوبيا ولو قد بيو حالين كوان سدح مالموضي قيلينا يكونها بدا إسكي إمادة قاتا مدحوينها قفل حسابتين من مارتين مدحوينها محاسمة يسي عدنا يسي من جدو المهم مركب
soomaalidu waxay ka midaysan tahay Ethiopia inaysan baddaas imaan laakiin waxa xaqiiqo ah in la doonayo wax kasta in laga dhigo siday iyagu doonayaan deegaan hadda ku dhow magaalada Boorame oo kaabiga ku haya magaalada waxaa soo degay ciidamo Ethiopian magaalada kama fogaan Boorame kama fogaan ciidamadii codkaas sirta waday doonaa waa cod si gooni ah oo qof ku dhadhow goobta uu ila wadaagay oo aan isku dayi doono xataa inaan aad u xifdiyo ciidankaasi oo bari ayaa la yiraahdaa meel Boorame aan ka fogeyno oo bari la yiraahdo weeyaan ciidan Ethiopian soo degay waxa soo dhan marka waa qorshe Ismaaciil Cumar Geelle u diyaarsanaa min bilow ilaa dhamaad qorshe markii horeba la diyaariyay waay heshiiskan Djibouti oo ka dhacay madaxweynihii qof la xisaabtamaysa ma warkan dadka la wadaa koow haye maxaa jira warkan si fiican u dhageysta ma sha Allah inaan warkan tabiyo aad u jeclaa wallahi sababtaas ma taqaanaa inaad sii ogaataan hogaamiyaha jabhadda SRM Muuse Biixi wuxuu tagi doonaa magaalada Jigjiga ismaamulka Soomaalida Ethiopia magaaladaasi Jigjiga ayuu tagi doonaa waxaana la qorsheynayaa in magaaladaasi looga soo dhaweeyo si aan caadi ahayn loo kaco Jigjiga iyo Muuse Biixi ka sheekay reer Jigjiga waxa lagu wargeliyay Muuse Biixi tusa jacaylka Ethiopia ay u qabto reer Jigjiga Muuse soo dhaweey doonaa waliba waa u kici doonaa waa koow kaniisadina waa daawateen kaniisadii u tagay baadariyaashii Ethiopia waad aragteen wixii shaydamankii madaxay ka soo garaaceen ninkii Muuse ahaa Jigjiga kadib wuxuu tagi doonaa ama uu ku laaban doonaa magaaladiisii Hargeysa marka muhiim in la dhaco masiibadan socota dalkeenii boobkiisa Soomaali gacmaha haysaysata lagama ogolaan doono dhul waqooyi mana laga ogolaan doono dhul koonfureed laakiin hoggaankeenu daacad ma yahay ilaahay baa runta nagu jecel hoggaanka dalka maamulaya daacad ma yahay oo go'aankan Ethiopia ma ka soo horjeeda haddaan qaldanahay waad isixi kartaa anigu waxaan ahay nin gudbiya warbixinada qofka Soomaaliga kastuu jiro iyo aqoon kastuu leeyahay si kastuu aqoontiisu leedahay uu isixi karaa waxaan idin ka rabaa madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud iyo dawladdiisu waxay hoos u dhigtay heshiiskii Djibouti lama shaacin shib wala amsi waxaa la yiri heshiiskaasi Ethiopia wasaaradda arrimaha dibadda Ethiopia ayaa xalay cadeysay haye mar haddii Ethiopia iyo qaar ka mid ah wadamada midowga Afrika aqoonsan doonaan Somaliland ko ka sheekeeyay arrintan wasaaradda arrimaha dibadda Ethiopia ayaa waxa ay warbaahinta gudaha u sheegtay haddii Ethiopia qaar ka mid ah wadamada midowga Afrika ay Somaliland aqoonsadaan UK-na ay wadada ku soo socoto Ethiopia inaysan jirin sabab ay u harto ka warramay saaxiibaya ka warramay midowga Afrika oo lagu sheekeeyo waan u dacwo doonaa ayaaba hadda waxa la leeyahay wadamo kala dabada isku soo haya safay ku soo jiraan ka warrama marka shalana maxaa noo sheegay wasaaradda arrimaha dibadda markii hadda warbaahinta gudaha Ethiopia ay warbixintan u sheegayso walaalayaalow ummadda in been loo sheega ma ah maxaa shalana loo dhahayaa taaka dhulkeena ka mid ah lama qaadan karo haye heshiiska Djibouti ma sheegin Muuse waa ku qaldan yahay Addis Ababa wixii ka dhacay heshiiska Djibouti ma sheegin heshiiska Djibouti ma sheegayno haye waxaan ka xunnahay wixii dhacay heshiiska Djibouti ma sheegin ilaahay baan idinku dhaariyay ilaahay baan idinku dhaariyay wixii xaqiiqo ah dadka qaar waxay leeyihiin warka si fiican ugu cadee dadka waxba kala gaban weligeeba war lama gamban runta markaan dadku u sheegayaan xaqiiqda kala ma gambado xaqiiq runtan waxa weeye waa laga maraystaan dadka Soomaaliyeedna waan wargeliyaan jigjigooba tagaba Muuse jigjigo warkii jigjigaaba yimidba abaay jigjigo warkan hadda sheegay jigjigo tagay haye dadka been u malaya warkan sheegay mujeedaan warkan ka hadlayo u jeedaan Soomaa
مصطفى عجر مين سك أنا سولوه أسأل والله مصطفى عجر بدارتي سوون جدي زمان بدارتي مصطفى عجر ودو جدا كو warka saan u sheegayay wax u socdaan jigjiga sheekada meesha numar Soomaa waa live barnaamijka sii share garay jigjiga kadib wuxuu tagi doonaa wuxuu ku laabanayaa Hargeysa shala marka waxaan lagu sheekayay taaka dhulkeena kamid ah aqbali mayno haddaan nahay dad Soomaaliyeed haddaan nahay madaxweynihii jamhuuriyadda haddaan nahay ra'iisul wasaare Xamse Cabdi Barre waxaasoo dhan shalay marka laga sheekayay waxay ii ahayd oo aan ogaa waxaan inay yihiin dhalanteed iyo been iyo sacabadkum aan waxba ka jirin maxaan ku caddayn karaa hadduu madaxweynaha khudbadiisa shalay ay daacad ka ahayd tusaale madaxweynaha haddaan anigu ahaan lahaa oo aan daacad ka ahaan lahaa khudbadii aan baarlamaanka ka horjeediyey qof da'a oo dhowr iyo 70 jirana aan ahay halkaanaan ka duuli lahaa saaka garowan tegi lahaa waa ka duuli lahaa laascaanoodaan tegi lahaa waxaan dhihi lahaa madaxweynihii jamhuuriyadda maahi muwaadin hogaaminaya dadka Soomaaliyeed aan ahay dagaal u diyaar garooba isla markiina Kismaayo ka degi lahaa baydhabaan ka degi lahaa jawhar iyo dhuusamareebna waan tegi lahaa 48 saacadood gudahood ayaan ciidda Soomaaliyeed intaan isugu maraan dhihi lahaa diyaar garooba dagaal u diyaar garooba waa haddaan nadiif ahay waay isla markiina saraakiisha ciidanka Soomaaliya booqan lahaa dhiigga dhalinyarada Soomaaliyeed inta dhaqaaqo Itoobiya awood uma laha lahayn inay soo dhaqaaqo laakiin Soomaalida markuu arkay inay kaceen markuu arkay in shacabka Soomaaliyeed ay kaceen oo la dhaqaaqay oo wuxuu dareemay arrintan haddaad ka aamusto shacabka waa kacayaan kacdoonka badanaya mucaarada kaaga faa'iideysanaya sidaa darteed qowda maqashii waxna haw qaban uqudbe hadalka u micee kana aamus maxaa sameeyna waa soo istaagaya aniga haddaan ahay madaxweynihii Soomaaliya haddaan madaxweyne ahay iyo haddaanan ahayn ogolaan ma iyo taaka kamid ah dhulkayga in la qaato saakana ciidamada Itoobiya Hargeysa ka degay saraakiisha Itoobiya Hargeysa joogaan ko afar maalmood kadibna caadi ah loogu bareeri doonaa madax banaanida Soomaaliya waa la isku qaawi doonaa banaanka iskeenaya maxaa yeelay cadowga hadda waa ka gaarnaa meeluu noogu gambay waa ka gaarnaa Soomaa haddaan afar maalmood jiljilaac iyo dowlad jilicsan oo aan tabarteedu aynan muuqan haddaan la soo baxno waa naloo qubaynaa oo ilaahay ugu ogyahay waa naloo dhammaynaa oo ilaahay ugu ogyahay runtaan idiin sheegaya muuqaalkan waa duuban yahay kaydkuuna geli doonaa waana idin sheegi doonaa 3 January maxaan idin dhahay waxaasoo dhan marka see looga hortegi karaa dawaa la rabaa warka aan sheego waa in xalkiisa aan keenaa haddaan ka aamusno dowladda Xasan Sheekh Maxamuud war wallaahi oo billaahi oo tallahi insan talaab qaadayn haddaan ka aamusno oo aan ka yarayno pressureka aan ka yarayno oo cadaadiska aan ku hayno aan ka yarayno oo aamusno dhahna madaxweynihii shalay baarlamaanka ka sheegay nalagu madadaariyo madaxweynihii Masar oo telefoon u diray wallaahi oo billaahi tallahi waa ka shalaynayna maxaa marka xal ah xalku waa in aynan dadku damin haddaad dantaan filimkiina eeyaa cunay reer xamarku saas yidhahdaan ciyaalka xaafadda waxay ku leeyihin filimkaaga eeyaa cunay macnaha waa ku dhammaato waaye haddaa laakiin badda Soomaaliya haddaad fiiri tusaale waddan la rabo in kacdoon la geliyo oo banooni la ciyaara inta lagu arkay waddan lagu soo duulay oo baddiisa la boobayo oo ciidamo military lagu soo qufayo oo ay Itoobiya weerarka u soo dhabagashay oo banooni iska ciyaaraya ka war caasimadda banooniga ka jiraba maba ka jirtaba caasimadii Soomaaliya dhif arrintan taagan maba ka jirto galabta Soomaaliya Muqdisho waxa ciyaaraya kooxda ama xulka kubadda cagta ee Hirshabelle iyo waxa ciyaaraya xulka kubadda cagta ee Banaadir shalay waxa ciyaaray xulka kubadda cagta Galmudug iyo waxa ciyaaray Jubbaland banoonigii iyo waxa naloo sheegay farqiga u dhaxay waddan marka taaka kamida dhulkiisa inta laga soo gudbay
loo gudbay in la yiraahdo intaasoo mayl oo bad ah aan kala wareegnay bari maxaa dhalanaya waxaa laydinku arka Soomaaliyeed fulay hantiisa ma moogaadeen shacabka Soomaaliyeed waxaa lagu yaqaanaa qeyra Japan laba maalmood ay qaylqaylayaan waa waray maalinta saddexaad shib arrintan saasay uga dhalanaysaa على كل حال أقونسي من نقدر ميت هرجلا وحشرعينا معها لكن هو الجبوبية ما هيو أقونسي إثيوبيا سوماليا شرع نقدر ما هيو لكن واحد يدير حقيقية وأن بوب بدأ ولا بوبي بريتنا وعريس أديك كويانا سياسيين الصوماليين شعب الصوماليين دل يدود ميل والباجوكتان ilma adeer reyaal hurdada laga tooso intay gori goortay waxaan halkan hambalyo uga dirayaa kooxda Darwish Band waa koox dhalinyaro ah oo fanaaniina oo ka dhisan magaalada Laascaanood oo saaka ila wadaagay hees ay ku muujinayaan cadawga Soomaaliya isla markaana ay farta ku gudayaan in cadawgaasi dhibaato uu ku hayo ummadda Soomaaliyeed fanaaniinta sharafta leh qiimaha badan ha aamusinina la mid noqda sida fanaaniinta Darwish Band ka dhisan Laascaanood iyo waliba sida ay dadka Soomaaliyeed guubabada ula garab taagayeen fadlan codkaaga ha baqiilin maanta waxa weeye waxa lagu muransan yahay waa badaada shacabka degan gobolada waqooyi ee Soomaaliya waxaan idin sheegayaa waliba gaar ahaan reer habar awalan hadlaya inta kale waa iska xalaal saaka kale xalay awrwaa idinka ilo warana ahada xalay mudaharaad ay ku dhigeen magaalada Hargeysa mudaharaad lagu taageeray Itoobiya dadkii Soomaaliyeed markay isku yimideen maxamed kaahinna uu rabo inuu halka ka qudbeeyo maxaa meeshii ka dhacay taageerayaashii shacabkii garxajis iyo shacabkii reer Boorama waa lagu soo yaacay habar awal afar meesha ka joogtay iyo afar caada qaato oo habar jecla ah kabtay maaragta ka dhacay Hargeysa 10 lama iloobana way nool yihiin damiirtooda marka shacabka waxaan idin sheegayaa Itoobiya soo dhawaysanaysaane dhubuqda hore horta dhabanahays dambay leedahay haddaanan idin tusin isaaq dib ka shalaynaya haddaadan idin tusin Itoobiya aqoon uma lehideen macaybaad Soomaali u qabtanaad Itoobiya u cararaysaan maalinta ninka xabashiga ah gabadha kula dhalatay uu hortaada ku kahaysto maalinta ninka xabashiga ah gabadha aad qabto kaala wareego ayaa dib uga shalayn doonta maalinta xabashiga gabadha aad qabto iyo hooyada ku dhashay haddii aad hortaada ku aragto iyadoo xabashi gacanta ka qabsaday horta isaaqo waad ka shalayn doontaa waxaad maanta ka cararaysaan waa Soomaali waxaad u cararaysaan waa Itoobiyaan af Soomaaliga aad u dhageyso waa cadowtinimadii Afrika war wallahi Itoobiyaan inuusan kala jeclayn daarood iyo dir iyo hawiye iyo jinni ma kala jecla waxaa ka go'an Itoobiya waxaa ka go'an in ay adiga ku dhibaatayso horta waa ka shalayn doontaa waxa la idinka celcelinayo waa injiray wadan qari ah haduu yahay maxaa ka biilaha wadan qari ah haduu xitaa wadan qari ah qabsan lahaa ama wadan haysta dhaqaale alxamdulillah halayd si aan u sifayaan heli lahaa laakiin waxa la idinka celcelinaya saaqow waxa la idinka celcelinaya Itoobiya miya Itoobiya la idinka celcelinaya Soomaa Itoobiya iyo saaq way arki doonaan Itoobiya iyo saaq way arki doonaan markay is arkaan hooyo aabalay waxa leeyahay dawladda dhexe fadhiga ka kaca mas'uuliyad baa leedin dhiibay mas'uuliyadaasi ka soo baxa waa hadii aad daacateen hadii mas'uuliyadii la idin dhiiba aad ku ciyaarteen adduun waaba adduun aakhira meeshaad galaysana la iska rabaa iska adduun iyo xalkeed wixii ku soo kordha waxaan idin kula wadaagi doonaa barnaamijyada soo socda hadduu alla idmo nasiib darro weyn dhacday dadka Soomaaliyeedna waxaan leeyahay allaha ka samirsiyo qof kasta waxa maanta socdana de waa mas'uuliyad darro madaxtooyada filla Soomaaliya ka jirta dawladda Itoobiya waa idin dul maraya intaan ka bixin live-ka dawladda Itoobiya toddobaadka soo socda ugu dambeyn 4 cisho kadib waxay wajihi doontaa ama ay ku dhiri doontaa inay ku dhawaaqdo inay aqoonsatay maamulka jabhadda SNM Somaliland magacii la isku oran jiray dhulkii markii hore lagu wada mideysnaa balse hadda isaaqlaan isku rogay arrintaas waxa xaqiijiyay wasaaradda arrimaha dibadda oo la hadlayay ama ay warbixintaasi siinayeen warbaahinta gudaha durbo khubaro ka socda Itoobiya oo saraakiil iyo dad takhasus u leh arrimaha badda ayaa gaaray magaalada Hargeysa qorshuhu wuxuu yahay inay u sii gogol xaaraan maraakiibtii la doonayay inay tagaan gudaha
gudaha badda Soomaaliya maraakiibtuna waa diyaar muuse biixi jigjiga u joogaa muuse intuusan jigjiga ka bixinna maraakiibtu waxay gaari doonaan dhulkii ama xeebtii loogu talagalay baddii loo calaamadeeyey kadib khaliijka u gudbi doonaa ninkii muuse ahaa dowladda khaliijka ama dowladda imaaraadka carabtana waxay ku tuuri doontaa mar kale iyagoo markaa fiirinaya dowladda xasan sheekh maxamuud iyo siday u dhaqdhaqaaqdo arrintaasoo idil dalaalka kala tuurayo waa ninkii ismaaciil cumar geyle ah meeshay ku dambayso ayaan kasoo warrami doonaa hadduu alla idmo aad baad u mahadsantihiin barnaamijyadeeda mar kasta iyagoo live iyagoo duuban waxaad kala socon kartaa facebooka pagekan cabdilaahi balwaan nabadgelyo